kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba meel walba dunida ka joogtaan kuna soo dhawaad warbixin aan kaga hadli doono faa'iidooyinka uu leeyahay malabka waa mid kaliya ee ugu macaan badan waxyaabaha uu alle ugu deeqay ummadiisa in ku munaafacsadaan sidoo kalena laga yaabo in aadan ka warqabin inuu leeyahay faa'iidooyin badan oo dhinaca caafimaadka ah malabka marka koobaad laga bilaabo isbedelka maqaarka saameyn weyn ayuu ku leeyahay caawinta inuu miisaan dhimis ku sameeyo waxyaabaha fiican ee ku saabsan malabka waa in loo isticmaalo daaweyn dabiici ah alle subxaanahu wa tacaala uu u kaamil yeelay adoomihiisa wax kasta oo ay u baahan yihiin quraanka kariimka ayayna ku caddahay malabka iyo faa'iidooyinkiisa anigoo huba inay farabadan yihiin malabka iyo manfacaadkiisa ayaa waxaan jeclaystay inaan idin soo gudbiyo waxyaabo badan oo ku saabsan malabka isla markaana la tijaabiyay number 1 tamarta wuu kordhiyaa haddaad doonayso in aad kordhiso tamarta jirkaaga isku day inaad malab ku darsato qorshaha raashinka qaar maalin walba haddii aad tahay kafee cab fadlan yaree waayo wuxuu dilaa waxtarka malabka oo la daa'imo wuxuu si dabiici ah u sameeyaa inaad hesho tamar tusaale haddii aad rooti marsato malab koobka shaahna aad in yar oo malab ah kaga darsato xataa aad biyaha ku darsato ogow waa quraac rasmi ah dadka sameeya jimicsiga wuxuu u leeyahay faa'iidooyin ballaaran malabka cun wax yar oo aan badnayn ka hor jimicsiga xataa marka aad ciyaar adag leedahay hore u sii cun lambarka 2 cuncunka dhuunta waa u dawo habeebta wuu u fiican yahay malabku haddii aad leedahay dhuun cuncun ama riiraxsho waa mid aad ugu wanaagsan malabka wuuna daweeyaa haddii aad joogtayso tijaabo la sameeyay ayaa lagu guuleystay malabka oo waxyaabo sahlan lagu daray tusaale dhowr qaado malgacad oo malab ah cun ama ku qas in yar oo milix leh ayodin iyo xabad liimo dhanaan ah dabadeedna cun way ku dareemaysaa inuu ka joogsaday cuncunkii dhuunta number 3 wuxuu dhisaa difaaca jirka malabka wuxuu awood weyn u yeelaa unugyada difaaca jirka qaasatan haddii aad ka shaqaysid meelo jeermis badan sida jeermiska ka yimaada dadka meelaha ay yaalaan isku day in aad joogtayso shaah lagu daray malab iyo liin maalin walba xusuusnow haddii aad caruur leedahay ka ilaali cunugka yar 1 sano in aad siiso malab waayo dheefshiidkiisa ayaa khatar geli kara xanuunka waa laga qaadi karaa 4 miisaanka wuu dhimaa ma og tahay inuu malabka ka qayb qaato dhimista miisaanka jirka tusaale haddii aad biyo diiran oo lagu daray liimo dhanaan aad cabti aroor kasta waxay yareysaa baruurta laakiin ha hilmaamin inaad malab ku darsato 5 hurdada wuu ka qayb qaataa haddii aad dhibaato ku qabto jiifsashada habeenkii xilliga hurdada malabka uu ka caawin karaa raac tilmaamahan in yar oo malab ah ku shub koobka dabadeedna ku dar caano diiran kadibna cab malabka wuxuu qofka u keenaa deganaan iyo raaxo habeenkii xilliga hurdada 6 dhaawaca waa lagu daweeyaa haddii aad dhaawac ka qabto meel ka mid ah jirkaaga oo uu dhaqso ku dawoowayo fadlan tijaabi in aad faashad ku duubto in yar oo malab ah kadibna aad ku dhaydo meesha iyo hareeraha kadib ula dhaji faashada waa jeermis dile malabka xanuunkiina wuu ka yaraanayaa waa tijaabo la sameeyay laguna guuleystay 7 neefta urta ee afka waa lagula dagaalamaa ma og tahay in malabku ka caawin karo in aad la dagaalantid sugidda cuntada malabka waxaa ku jira sonkor dabiici ah oo aan waxba u dhibeynin baarka runta waxay tahay malabka in lagu dagaalamo neefta urta ee afka ka soo baxda taasi macnaheedu ma ah inaad joojiso cadayga maalin walba waa waajib taasi haddii aad leedahay neefta urta ee loo yaqaan kroonikada waxaad isku dartaa in yar malab ah iyo qarfaha shaaha si aad ula dagaalanto neeftaada xun waxaa kaloo jira tiro badan oo faa'iidooyin ah oo uu leeyahay malabka kuwana waa qayb yar oo ka mid ah marka ujeedada ma aha inaad wax badan ka qaadato malabka waayo sun ayuu kugu noqon karaa haddii aad xaddi badan isticmaasho waxaan filayaa in dad badan ay ka faa'iideysan doonaan isla markaana ay ka ogaadeen caafimaadka uu leeyahay malabka ballanteenu waa inaan isticmaalo malabka tan iyo kulan dambe nabadgelyo